السلام عليكم أصحابتي qaaliga waa idin wada salaam meel kasta adduunka joogtaan walaalay quruxda badan waxaan idin leeyahay gacan furan kusoo dhawaada ilaahay ayaa mahad iskale oo mar kale muuqaal cusub inuu kulan siiyay xasaabta cusub waxaan idin leeyahay gacan furan kusoo dhawaada haddii ay tahay markuu ugu horeyso channelka soo booqateen waxaan kaa codsanayaa walaashay ama walaalkay inaad channelka subscribe inoo saarto insha Allah waxaan rajeynayaa muuqaalka ka heshaan muuqaalkan aad iyo aad ayuu waxaa waaye xamaasadiisa u wataa insha Allah muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay waxay tahay rutiinka habeenkii iyo wixii aan qabano markaa tahay hooyo shaqeynaysa ama banaanka u badan insha Allah waxyaabaha ugu fudud ee markaas habeenkii oo kale marka adigoo daalan xaafada aad timaado aad boobsiin karto waqti badan aan ka qaadanaynin iyo waxyaabaha hoosh yacni ku fududeyn karo haddii aad tahay hooyo caruur yar haysato insha Allah waxaan soo saartay biyo baasta aan dabka soo saartay kadibna waxaan halkan soo saartay birtaabo ayaan soo saartay wax yar saliid ayaan kusoo shubtay insha Allah waxaan rabaa baasta dheer oo fudud oo kaaliska arag inaan sameeyo baastada marka sameynayso uma baahnid hilib ama waxyaabo culus oo marka dib ka qaadanay shiik digaaga shafka oo kale waa ku sameysan kartaa insha Allah markii aan saliid kusoo shubay xogaa iyo soo kululaatay digaaga shafka ayaan waxaan soo jarjartay si xogaa yara balbalaara ama dhudhub camal ayaan xogaa soo jarjaray qof walba dooqiisa sidoo ka hel ayuu ku xirantaa insha Allah ayaa u jarjara kartaa qasamaha sida aniga u jarjarto oo u jarjarto marka waxaan idin ilaa waxay tahay digaaga waxaan kusoo markaan soo jarjaro waxaan kusoo daray wax yar cusbo iyo filfil shiidan ayaan kusoo daray waxa ka mid waxa waaye filfisha aad iyo aad ay u fiican tahay filfisha caafimaadka yacni waxyaabo badan ka qayb qaadanaysa insha Allah raashinkan wuxuu ku siinaysaa dhadhan oo aad iyo aad u heersareeyso yacni mana kululo saaid uma kululo kadibna markii xogaa aan soo shiilay oo digaagii ay kasoo baxday dheecaankii wixii dhan markii kasoo baxday oo yacni qoyaanka dhan aan kasoo bixiyay ayaan ka saaraya hadda saxan gooni ayaan saari doonaa insha Allah birtaabadan marka uma baahnayn inaad sii dhaqdo saliidii aad markaas ku karisay digaaga ayaad kusoo shiilanaysaa haddana toon iyo halkan waxaan ku jirto basal ayaan soo jarjartay intaas ayaan isku soo shiili doonaa insha Allah xogaa markii noo soo shiilmatay aysan saaid u casaan u noqon ayaan waxaa kusoo shubtay yaanyo shishiid ama ayaan kusoo shubtay yaanyo shishiid waxay ka caawinaysaa suugadaada xogaa inay noqoto suugo xoogaha yara adag oo way bibi saaid kama noqonayso kadibna waxaan kusoo darsaday yaanyadaas arkaysaa waxay wadataa barshiilka ay wadataa waxyaabo caraf iyada ayaa gooni u wadato haddii aad rabtan adigoo ku darsan kartaa insha Allah biyi baasta markay inoo soo karkartay ayaan haddana kusoo shubnay baastadeeni dheereed qof walba baasta kale waa kaliya yaqaana insha Allah laakiin muuqaalkan waxa waaye dhiirigelin hooyada markay shaqeynayso caruur yar ay haysato yacni aadan waqti badan aad helaynin laakiin sidee ilmaha ku siisan kartaa cunto fiican oo markaas kulul oo waxba waqti badan aysan ka qaadanaynin 20 daqiiqo 30 daqiiqo ugu yaraan cuntada raashinkaada ku soo sameyn karto insha Allah baastada markii inoo soo kartay iska raal noqdana hergebna waxaan raadsan sanka dhan waa xiran yahay awlaas markii hore taaba sanka yar qabay sanka yar hergeb ku dhacay karaal noqdo insha Allah codkayga oo si kala noqdo baastada markii aan kusoo shubay wax yar cusbo ayaan kusoo daray suugadan halkan ayay inoo saarantahay ayadan sidoo kale xogaa markii yaro soo karkaraysa aan arkay ayaan waxaan kusoo darayaa xabad maraq digaag maraq digaagana waxaan isticmaalaa midka khudaarta ayaan badanaa isticmaalaa insha Allah kadibna waa soo burburinaa insha Allah marka basasha sida arkaysan waa laga dhax arkaa ilmo yar oo kale hadaa haysato oo basasha necab yihiin oo kale waxaad sameyn kartaa suugada markii ku soo yara karto ayaad kasoo shiidi kartaa miiskii lagu cashey lahay ayaan halkan sidoo kale boobsiinayaa dariishada hada arkaysan qoraxda maal cadii waa la soo jeedaa ma fahanteen xilli habeen oo 2 saac habeenimo waaye haddana waxa waa iftiinka ma sha Allah tabaaraka laga sheekay karo xilliga samarka ayaa la galay waxa waaye banaanka dhan iftiin waaye ilmaha xitaa ciyo kaama seexanayaan laakiin waa qasab in rutiinkooda ama xilliga ilmaha seexsan jirto kaleeto inaad ku dadaasho inaad iyaga iska seexiso waqtigooda ay ku seexdaan ama iftiin ha jiro ama mugdi ha jiro dahman madow kaleeto ayaa guriga lagu xirtaa laakiin waxa waaye sidaas ayaa fiican insha Allah saxmankii ayaa meesha soo saartay iyo wixii abitaankii lagu casheelay insha Allah suugadiini waa soo shiitay suugada markii wuxuu ku qurux badan inaad shiido waxay tahay yaanyada hadii ay burtuur ka noqoto kaleeto ama basasho kaleeto ayaa iska bixinaysaa insha Allah kadibna digaagii aan soo diyaariyay markii horeeto ayaan haddana ku soo daray markii ku soo daray hadda intaas ayaan dabka haddana u gaabin doonaa insha Allah daboolka ayaan dab ku siinayaa intii xogaa kasoo yara karkaraysa ayaan sugi doonaa insha Allah suugadani intee nooga soo karkarayso daboolka ayaan dab ku siiyay wadiga muddo 20 daqiiqo ayaan sugi doonaa insha Allah waayo suugada waxa fiican markii dabka wax badan ay qaadato ama ay ku saarnaato ay ku noqonaysa suugadaada suuga macaan badan oo kala iska arag
suugadii markii xoogaa inoo soo shiilmatay kaale iska arag ay soo noqotay anigu markasta cunto kasta aan karinayo dabka saaid uguma bariyo way suugada ama yani wax kasta aad karinayso waxa fiican dab dhexdhexaad inaad ku kariso si aysan kaaga gubanin cuntadaadan ay noqoto cunto macaan badan insha Allah. Suugadii markii inoo soo karkartay ayaan waxaan kusoo sameeyay baastadii ayaan kusoo shubtay kadibna waxaan ku daray crème fraîche waxa la dhahayo ama caano fadhiyo waaye insha Allah. Waxaan rajaynayaa dukaan kasta inaad ka heshaan crème fraîche wuxuu ka caawinayaa cuntadaada dhadhan aad iyo aad u heertaris ayuu siinayaa. Barbarooniga cas ayaan si dhudhuban usoo jarjartay waxaan halkan kusoo kaloo jarjartay isagana sidoo kale wixii taa kabsar caleen ayaan si yar usoo jarjartay soo aniga kabsar caleenta waxaan sameeyaa inta badan mindida ayaan ku yaryareeyaa oo aad ugu jarjaraa markaas ay qurux badan tahay laakiin haddii aan kashi iyo mooyaha oo kale inta qaato aan tumo kale iyadana aad iyo aad ay u caraf badan tahay laakiin sidan ayaa ka qurux badan insha Allah. soo dabka ayaan wax yar ku daayay ilaa ay muddo 5 daqiiqo markii ay soo dhex gashay baastadeeni ayaan waxaan soo qaatay weel yar oo godan ayaan soo qaatay ayaan ku shubi doonaa insha Allah. Cashada halkaas ayaan ku diyaarsanaynaa ma sha Allah tabarakallah lagama sheekay karo soo ilmaha inta badan waxay cuntada ay bartaan ama cuntada u wanaagsan ee u fiican waxa waaye cuntada markay xoogaa qoyaan leedahay ama cuntada ayaa fiican wax kasta aad sameynayso xoogaa markaa cunto yar oo qoyaan leh u soo sameeysa ay ilmahaagana ku cuni doonaan insha Allah. Baastadeeni halkan ay diyaar noogu tahay wax yar oo salad ayaan soo jaranay ugu dambeyn waa tan cashadii halkaas ayaa lagu soo dhameeyay waa la soo wada cashay familka alxamdulillah famil qurux badan ma sha Allah tabarakallah famil kasta oo Soomaaliyeed guri kasta oo Soomaaliyeed oo dhisan waxa Ilaahay ugu baryaa inuu sii jiro يعني lagu dadaalay insha Allah soo caruurteena ogaada wixii ay qabaan maalintii oo dhan waxa qabteen activity yani wixii banaanka laga soo qabtay oo kala caruuraha markii xanaanooyinka la geeyay wixii maalinkaas soo qabteen oo kale oo dhan in laga wareysto insha Allah. soo ugu dambeyn halkan ayaa waxaan ku soo wada shubayaa raashinkii haray ayaa weelal yar soo qaatay caagada isku dabool oo aan rabaa inta xoogaa hada weeyaro kulushahay laakiin raashinka lama geliyo fridge-ka ilaa ay ka qabowdo. halkan waxaan iska saari doonaa insha Allah micro korkiisa ayaan saari doonaa halkan waxaa is leedahay ku fakadan faadeen cashadii aan diyaariyay markii wixii oo dhan weelashi ilmahan wuxuu ku fiican tahay inaad gacantooda ku siiso waxay idin waxay tahay meel kasto waxa waaye way idaasanta baasta ayaa daadsan alxamdulillah intaan ba qof ay haysanin insha Allah ilaahay xasi awlaada waxa waaye wax aad iyo aad qaali u ah ma fahanteen soo cunugii markaa haysato waxa wanaagsan had koorn dhowr mar waa ka soo hadlay ilmaha yar markaa haysato waxa wanaagsan gacantooda inay ku cilbaxan inaadan af u gelgelin waayo hadhow meel kasta aad geyso wuxuu cunugaas isku dayayaa adiga kuma sugaayo wuxuu isku dayayaa asaga kaligiis inuu cuno sida qof weyn oo kale inuu tababarto oo cuno kaligiis ayay ka caawinaysaa waayo qofkana gacantiisa ku cilbixin maba cilbixi karaan faantay waxa way qof kasta gacantiisa ayuu ama ha yaraado ama ha weynaado cunuga soo gacantiisa inuu ku cuno wax uga wanaagsan ma jirto laakiin anaga hooyooyin markaan aan qaasatan hooyooyinka Soomaaliyeed qeyr ilaaha si xumaan kama ahan waxaan jecelnahay ilmaha inaa afku gelgelin laakiin waxa fiican go'aan inaa qaadatid cunuga wax uu awoodo inuu cuno cunuga wax uu awoodo inuu sameeyo in asaga u deysid si uu cuno ma sha Allah tabarakallah jikadiini markii aan soo hagaajiyay dhagdhag aan ka soo dhigay wixii aan ku shubi karo kale mashiinka alaabta ayaan ku soo wada shubay inta kale waaweynooda aan mashiinka galeynin gacanta ayaan ku soo wada dhaqay alxamdulillah marka amal ayaa ka seexan kartaa yani hoosh way ku dhan tahay marka aniga hadartan waa yani birta waan haystay geedka daabada unsiga laakiin ma rabin inaan markaas shido waxaan sameeyay shumac yar ayaan soo qaatay dhaladaas ayaan ku soo riday markii aan soo shiday kadibna halkaas ayaan waxaan ku soo shubtay carfiso ama yani unsiyo kaleeto ayaa ku shuban kartaa kadibna waa ka ma sha Allah tabarakallah sidaas yar ee fudud ayuu kuugu fooxa guriga dhan caraf ma sha Allah tabarakallah laga sheekan karo udgoon ayuu noqonaa soo alaabtii waaweynad halkaas ayaan ku soo wada aruuriyay si aysan yani qoyaanko dhan ama biyaha ugu daataan baastadani halkaas ayaa inoo saaran tahay gadaal dambe ayaan ka xiro doonaa muuqaalka inta hadii ay la soo gaarto waxaan ka codsanayaa muuqaal kale intaan ku kulmeyno inay fiidiyoga inoo share galayso like tan hanaga ilo muuqaalka xiga insha Allah.